waxaan ahay hooyo 9 caruur leh waana Universal TV-na waa u mahad celinayna. hooyooyinkan Soomaalida ah ayaa u dhabar adeegay inay wax bartaan oo ay mustaqbalkooda sii dhistaan iyagoo waliba halkan caruur ku korsanaya waxaana ay ka qalin jabiyeen mid kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn Australia ama gobolka Victoria waana jaamacadda RMIT. magacayga waa binti maxamed xaashi waxaan maanta aad iyo aad farxadeyda lama soo koobi karo 2 sano ayaan waxaan baranaynay fashion and design sida dharka loo tolo RMIT ma sha Allah riyadayada way noo rumowday ilaahay waxaan ka baryeynaa inaan tii ay noo noqoto aan dadka yaga iyo dadkeena iyo familiga yaga aan wax ku tarno. magacayga waa Shamaal Cabdirashiid waxaan baranayay jaamacadda RMIT 2 years hadda ayaan graduation sameynay waxaan u mahad celinayaa maama Xaliimo Sheekh khayr Allah siiyo sida ay noo dhiirigelisay in muddo ah waxbarashada inta kuma koobnaan doonto hadii alla yiraahdo waan sii wadayna insha Allah. hooyooyinkan waxa ay barteen tulidda dharka casriga ah noocyadiisa kala duwan iyagoo koorsadan waday muddo dhan 24 bilood amba 2 sano. Xaliimo Sheekh Maxamuud ayaa gacan weyn ka geysatay waxbarashada dumarkan. waxaa jiray gabdho muddo badan baranayay harqaanka oo African ah oo isugu jira East African community most of them ay ahaayeen gabdhahaas waxay sameeyeen howl aad iyo aad 2 sano ayay course dhiganayeen certificate clothing production bay soo dhameeyeen waa arrin aad iyo aad very important u ahayd maanta meeshaan ku graduate gareeyeen waxay ka qaateen jaamacadaha waaweyn oo wadankan RMIT University. 2 years, it was quite a commitment, and I really want to talk about the dedication of the student. Congratulations, Dahab. waxaan meeshaan u joognaa oo maanta u nimi xaflad aan caadi ahayn oo ay ku qalin jabinayeen dumar Soomaali iyo cid kasta leh. runtii halkan waxa ka dhacay barnaamij aad cajiib u ah waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in gabdheenu ay halkan ku qalin jabiyaan oo shahaadooyinkaas iyo waxbarashadaas iyo tacliintaas iyo waxa ay ku qaateen runtii ay halkan ku soo bandhigeen. waxa goobta lagu soo bandhigay agabka dhaqanka Soomaalida iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka dalkeena Soomaaliya u gaarka ah. sidoo kale jaaliyada Philippine ayaa iyana halkan ku soo bandhigeen ciyaar dhaqameedkoodii. waa dufcadii ugu horeysay ee hooyooyin Soomaaliya ka qalin jabiya kulliyadan farsamada gacanta sida la sheegay. Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia.